madaxweyne xasan sheekh maxamuud caawa waa bareeray luqad ay fahmi karaan ayuuna kula hadlay mucaaradow ama buuqa ama qayliya ama waa mudaharaadayna dhaha kullayba idinka idin taallaa ninkii madaxweyne xasan sheekh maxamuud ahaa caawa isagoo caraysan ayuu 2 saacadood hadlaayay hadda waa 2 saacadood wax uu ka tegey oo ilaahay abuurana ma jiraan wax u dhiman oo caawa uusan ka hadlin haddii ay halayd dastuur doorashooyinka wixii la soo maray meesha dawladnimada laga soo bilaabay halka loo socdo meel uu ka tegey madaxweyne xasan sheekh maxamuud male waliba caawa si cad ayuu u yiri muddaxileedkaygu wuxuu ku eg yahay aniga iyo hay'adaha kale ee dawladda 15 May 2017 qof aan uga heebeysanaya male cid aan uga gambanaya male cid aan ka aqbalaya ma jirto dastuurkii waa la bedelay sidaasuna ansax ku yahay waliba wuxuu sheegay madaxweynuhu inuu maalintii isaga oo saxiixay oo dastuurku dhaqangal noqday waxa kale uu sheegay in dhawaan la kala saari doono xildhibaanada iyo wasiirada waxaana uu sheegay in qof xildhibaana aanu ka sii mid ahaan doonin golaha wasiirada waa hadalla cadcad oo aan laalaab lahayn oon gambasho lahayn oo dadka Soomaaliyeed oo dhan ay fahmi karaan caawa hadda mucaaradku waxay ku shirsan yihiin oo hadda munaasabad uga socota aan kula hadlayo hotel jazeera iyagoo leh madaxweynuhu mandatekiisa waa dhamaaday maanta ku ekaa dalkuna wuxuu galay firaaq dastuuri ah laakiin madaxweyne xasan sheekh maxamuud taa dhig jaraq uma siinin waxaanu afcad ku yiri caawa waxa inoo balana May 2017 intii ka horeysana waxaan ka shaqeynayaa doorasho qof cod ah wax haray oo laga wada hadli lahaa ama la dhigeysan lahaa inay jiraan u malay maayo runtii caawa wuxuu jeediyay khudbad aad iyo aad u dheer oo aan isdhihi karo anugu xataa intaan xasuusto weligii madaxweyne Soomaaliyeed oo inta hadlaya maar 2 saacadood oo xiriir ayuu madaxweynuhu hadlayay isagoo ka qayb galayay munaasabad uu ku xarag jaray wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha oo dhismo cusub loo dhisay dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed ayaa isugu tagtay halkaasi isaga oo si toos ah ula hadlaya dhalinyarada ayuuna khudbadan jeediyay waxa kale oo madaxweynuhu uu sheegay in doorashooyinka dadban ay yihiin kuwa masiibo ah oo laga soo gudbay dhimashana ay sababaan halka doorashada qof iyo codka aan muqdishona lagu dhiman baydhabana aan lagu dhiman sidoo kale waxa uu weerar ku qaaday madaxweynuhu hore ee koonfur galbeed isagoo sheegay in markii la dooranayay dad badan la dilay oo la laayay kuwa badan la soo xirxiray oo maxaabiis ay ahaayeen sanado fara badan hadda doorashada maanta dhacdana xitaa wuxuu sheegay in 2 neef oo ari ah aan isku hortin taasoo uu sheegay inay tahay doorashadii ugu fiicneed ee baydhaba ka dhacday ama ka dhici lahaydba haddaba maxaa laga filan karaa mucaaradka maxay tahay tilaabooyinka u banaan inay qaadaan si ay madaxweyne xasan sheekh u jaalan jigareeyaan aragtiyada nala wadaag muuqaalkana leeg noo saaro oo si shar gareey aad iyo aad ba u mahadsantiin saaxiibayaal